dawladda horumar bay gaartay oo deyn cafis baa la inoo sameeyeyo maxaan ku iraahdaa adduunkii baan ictiraafayoo shidaalkii baynu soo saaranaynaa waxyaabahaas oo dhan wax ay tarayaan lama arko dawladaha marka maanta dhahayo muxuu ahaayay transparency jiro wanaaga jiro oo horumar maxaan ku raad la gaaray fidnay ka talinayaan aan leenahay dawladaha saas ka shaqeynaayo lacagta ay sheegayaan waa mid Soomaaliya hoojinaysa mid Soomaaliya wax u talaysa ma waxayna ku xidhan tahay in saameynta laga hortago in sharciga wax laga bedelo waana ogaad doontaan maanta meel iyo qora xukuumadda 2 sano la soo dhaafay mushaarka askarta iyo shaqaalaha bixinaysay walow aynan bixi jirin waxyaabihii kale la xiriiray rayn koostigo aan xogaal u ahayn in 10 wasaaradood hal maalin korontadu ka wada go'day meel iyo qora maanta sanadkan 2019 aan ku jirno ma bixi karayso mushaarka shaqaalaha iyo hadda ma joognaa January haddaan nabad wada qabno wada joogno i weydiiye warkaas January 2020 sanad kadib i weydiiye ma bixi karayso sababtan saas oo waxay tahay kalsoonidii deeq-bixiyaasha adduunka ku qabtay way dhimanaysaa maanta halkan ku aasna horta waxaan rabaa inaan idin sheegno shalay meeshii aan joognay iyo caawa meeshii aan joognay shalay waxaan joognay inaanan xiriir furan oo wax nala ku aamini karo aanan la lahayn bangiga adduunka hay'adda lacagta adduunka bangiga horumarinta Afrika shalay waxaan joognay inaan nahay waddan nidaamka maaliyadda ka dhacsan maanta waxaan joognaa waddan hay'adda lacagta adduunka bangiga horumarinta Afrika aanay wax shilin oo deyn ku lahayn oo annaga iyo wadamada dariska iyo wadamada dunida u simannahay labo maanta waxaan joognaa inaan nahay waddankii ugu dambeeyay oo loo ogolaaday deynta in laga cafiyo macnaheedu waxay tahay albaab walba maanta noo furmay